taageersan waa jiraan oo ka xanaaqi doona oo maaragtay arrimahan dhibsan doona ha dhibsanin sababtoo ay u dhibsaneen waxay tahay qof walaalka oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan khiyaanadii iyo dhibkii lagu sameeyay ka damqo gabadhan caruur bay haysataa informationka iyo waraysiga ayada noo bilaabi doonta maama magacaaga ku bilow aad baa ku salaameynaa soo dhow waa mahadsan tahay barnaamijkan qaaliga aad igu martigelisay aad iyo aad u mahadsan tahay khayr Allah ku siiyo ajarkiisana waa helaysaa waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo wada dhageysanayo soo dhow khadka ku dhagay maamada tani waa maamo dhibaataysan aragu see way hadda fadlan aragu waa see saacadiyo maamada soo dhow maamada okay haddaan ku soo celin doonaa waxaan kaa codsanaynaa inaad messengerka iska tirtid messengerka inaad iska tirtid sababta waa lagu wareerinayaa messengerka iska tir fadlan messengerka iska tir dadaan naqasaayo intaadan soo gelin waraysiga waa inaad messengerka iska tirtaa midda koowaad wey waa barkasi ku tahay magacaa ku magacayga Istar Cabdi Maxamed waxaan ku magac dheeraa Istar Cabdi Xuubey wax tartiib baan wax ku weydiinaynaa waa inaad ka jawaabtaa Istar ma tahay hooyada laga sheegay warbaahinaha qaar ay sheegeen ee dawladda federaalka la shaqeeya ay yiraahdeen maamada u bixisay caruurteeda khayra iyo farmaajo ee mataanaha ahaa lacag inay siiyeen sheegeen adiga ma tahay ha aniga waay okay bal xaaladaada nooga waran caruurtaadii aad dashay khayra iyo farmaajo ugu magac dartay dawladda ugu abad khayra farmaajo waa naanees maxamed xasan ayaa la yiraahdaa magacayga aniga wuu ii qarsoonaay maalmaha kamida waxa ii yimi nin oo idaacad leh maya marka hore see lagu ogaaday caruurtaada inaad u bixisay ugu magac dartay dadka dawladda see bay ku gaartay horta magacyada waxay ku gaartay xaafadoo dhan ayaa laga maqlay okay markaas wiil suxufiya ii yimi wuxuu dhahay ma wiil iyo gabar baa mise waa laba wiil markaasaan waxaan dhahay markaas waxaan dhahay waa kana arag markaas way fiiriyaan waa laba wiil waxay dhaheen maasha allah midna khayr uu eg yahay midna farmaajo uu eg yahay dawladda ma og yihiin bay dhaheen markaas waxaan dhahay maya facebook aan dhigay ana friends badan ma lihi waa iska dhigi laakiin wax ii soo jawaabay ma arkin okay waxay dhaheen waan ku caawinaynaa waxaa imaanaysaa idaacadda kulmiye صح idaacadda sidii aan ku tagay صح labada cunug waxaa la siiyey $200 markaas waxaa siinaayo ninka idaacadda iska leh good caruurteeda waa 2 bahood 5 cunug waa isku bah 4 cunugna waa isku bah waa agoon عليكم السلام الوالد صح بس لودي بقول مركو سي كبعدي مدحدا قرنك ayaa warkii maqleen saan jeclahay adigu waan soo wacay waxa la yiraahdaa $2,000 ayaan ku wadnaa isdiyaarin صح guriga la igu soo koray $2,000 markaan tiriyo waxay noqotay $1,900 aniga marka damiirteeda way siin weys inaan dhaho 100 baa ka dhiman ina camera igu socoto markii kamerada la damiyay 100 waxa la dhahay waxa siisaa kamerada idaacad baa ku timi dawladda yaa ka socday markaas wax ka socdo dawladda iyo ma imaan waxa ii imaaday idaacad leh okay idaacad baa ku timi idaacadaas idoo idaacad ay waxay soo wadatay idaacad kale oo la yiraahdo Kalsan TV ina waxa arkay geedka lagu hadlaay ayaa ku qornay Kalsan TV
صح ميكروفونك ها waxaa la yidhahay $100 sii haye $100 sii waxaa ii soo hartay markaas 1800 haye ninkii abwaanka ahay lacagtii oo ninkii idaacadda iska lahay kulmiye lacagtii uu iga qaaday wuxuu dhahay 400 hoo 1400 na jeebku gashtay macnaha markii wax laga duubay oo laga dhameystay oo ay ku weydiiyeen lacagtii ma haysataa oo aad ku tiraha lacagtii waxaan idinka hayaa 1900 boqolkii ay kala hareenna aadan wali wax aad sii weydiin oo intaas laga duubtay bay waxay kugu yiraahdeen lacagtii bay ka ceshteen miya marka dadka si fiican inay fahmaan ha lacagtii ay iga ceshteen 1400 ana u jeeda ayaa la ceshtay boqolka kale meel lagu qaatay aniga ma ogeyn iyo qofkii qaatay ma ogeyn laakiin lacagta lay dhiibay 1900 ay ahayd boqol kaamirada qaadatay waxa soo haraayay 1800 lacagta dhan waa laga wada qaaday 400 la siiyay waxaan dhahay lacagtan soo aniga ma lihi soo ciyaalkan looma soo dhiibin markaas waxaa la dhahay waxbaan ku soo habeenaynaa intaas oo xafiis intaas oo dad ay maraysaa lacagtan guri ay waxaas waxaan dhahay guri waxaas ma rabiye waxaan rabaa dalka Uganda inaan ku noqdo falsification aan leeyahay inaan maraa rabaa lacagtan way igeysaa Uganda marka waxaan dhahay iga daaya maya maamo waa ku saxan ka bacdi lama soo wicin aniga wacay waxa leeyahay sug xaq uu aaday xagga la qabtay si li mermerina markii dambe dadkii aniga i dhalay ayaa waxay u maleeyaan madaxweynaha qaranka inuu siiyay lacag $30,000 صح anigi waxaan dhahay $30,000 leema siinin waa been mana arkin waa arki lahaydeen may 30,000 qaadat war madaxweynaha xataa assalaamu calaykum ima soo dhiinaan dhahay khayra sidoo kale assalaamu calaykum ima dhiin dad baa noo dhaxeeyay dadkii noo dhaxeeyay intaas ay keeneen intaasna way cishteen been baa liiga maleeyay lacaga haysataa bilkii aan qaadanay waa leega jartay meeshii waxaan galay baahi aniga markii 3 bilood aan baahnay aan hal waqti aan cunay ilmahan siinay biyo sokor leh iyo naaskeyga oo baahday ayaan Facebook soo dhigay inta wiil waxay caawiyay oo xaafadda oo daris aan nahay oo raaxmare wuxuu idaacad jaziira la dhahay al jaziira ayaan caawisay ma yorta idaacadaas ka bacdi idaacadda qaranka wiil ka shaqeeya ii yimi wuxuu dhahay maama anaa ku caawinayo dhaga $100 keen dhaga aan haystay oo naf xil oo ii ahayd soke aan gaday $100 iyo xalisi $300 wiilkii $100 aan siiyay wuxuu soo qaatay kaamirada oo aroosyada laga duuduubo waa haya xataa kaamiradaas uu iga duubay ani ciyaalka ma isoo dhigin idaacadda qaranka ها ويجا قاطع عبد الله يا لمبركي سواها إذا عاد قرنك وشقيا حتى إلى الآن ما دعوين وحنا وحيج السي حتى مرقاتي وحيجا هرمود إن العكتس أطوري بس أنا بقول كصدق وقال أساس إن بليدر درايو كل ضد وكأمن بحي هذا السعفي حطوا ده حتى حش كان كإما هذا أقول إيه السوقله ما آمن هذا إيه وضح حتى العكتي أو العك أو رهنا دقيقة حتى ما آمناي وحهم لنا إنه يدلاي حتى دبت باهي مركب باهي أنا علمي إن أكون تنربي ويل الصومالية ده إيراد دومنين صومالي وين دبكاد وشيء وحنا أنا مش ساكن كريم جوا حشونا حتى حشونا سو يربايا ودمنا يسعى دولة ده حكومة قبنا يسوق جدا دلالينا نقول حجرت أتاك وينكم مقلين أتاك الربان مكسور راسدان ويلك الصومالية ده يداعو بس أديك ضربة سؤال واحد كويدينا يعني لعقت مركي إذا عدك ووريت سيكون يسقالك بقول أو أول ما لقوش إن لما كنت دولة كوسو بيبتي قعنت هذه ما دام إيش سابع ونقطة هذا العكاس waxay u noqotay ninka waxa la socday staff qorille meeshan haduu qori soo galo waxa tahay male adiga sacbo leeyahay ما تاعي عيالكيga ahayn meesha wariyaashi boqolka dollar wuxuu siiyay wariyaashi wuu iska diray asagii staafkiisa ku haray meesha
markii lacagta laga ceshanaya aniga maya videogi markii lagaa duubay oo aad videogi ku sheegtay inaad lacagtaa guddoontay oo cajalkii lagaa duubay ereyga ay ku yiraahdeen ereyga ay ku dhaheen muxuu ahaa macnaha ma waxay kugu yiraahdeen lacagta dib u soo celi miyay kugu yiraahdeen maya wuxuu dhahay ra-iisul wasaaraha ayaan lacag ka wadnaa waxaana noo dhiman tii madaxweynaha waa ku soo tuuri karaa waa haya cajalada ama youtube-ka ka heli kartaa xataa isagoo dhahaya tii madaxweynaha ayaa noo dhiman waxaan qabaa weliba gabsaar basaliya iyo indhashareer way cabsiiyeen dadkan si kasta igu ciyaareen maalintii koo waxay dhaheen indhashareer ha xiranin markii lacagta lii keenayeen waxaa la yidhi indhashareer xiro ninka dadka kuu yimi magacyadooda ma sheegi kartaa aniga waxaan ka garanayaa hal nin haye waxaa la yidhaahdaa abwaangure muxuu qaabilsanaa muxuuse ahaa ninkaas wuxuu yahay idaacadda kulmiyuu iska leeyahay waa haddana waxaa waaye maareeyaha tiyaatarka waa garanay marka aniga dhan kastaa lii weeraray dhan kasto ayaa liga soo galay baasha waa iga badisay waa iga badiyey in lagu hanjabay ma jirtaa oo lagu yidhaha hadle haa waxaa la dhahay weliba haddeer ninkan afaariis ka bax haddaa ka bixi weyse waa lagu dilayaa waa ka baxay afaariis waa ka leexday kow waxaa lii geystay jirdil jirkay gudaha dhaawac ayaa ku yaallo balaanka laakiin waa kaa waxay dilay laba nin oo indhashareer wadato iyo laba nin iyo laba naago waa laba mar ayaad ii galeen daranjarta markii kow waxaan tegay booliiska waxaa lay dhahay arrintaadu siyaasadee waa siyaasad ayaa ku jirtaa koofi casaa meesha joogto ma geli karnay dheen booliiska waa markii kow oo lay dhahay car ka bedel ilmaha magaca kuwana waxay leeyihiin ka bedel ilmaha magaca ayaa lagu dilayaa kuwana waxay igu dilayaan car ka bedel magaca aniga marka waxaan noqday waa liga tabar badiyey runtii waayo haddaan keligay ahaan lahay dadkaas waa iska dhicin lahay laakiin caruur baa meesha fadhiso wixii lasoo tuuro caruurtay ku dhacayaan hadda gabar baa mindi ku dhacay dadka si fiican nagu faahfaahin kartaa iyo qaabka lagu garaacay waxaa lagu garaacay daranjarta mugdi waay meesha waxaa la dhahaa sarta waxaa la yidhaahdaa madxafka qaranka soomaaliyeed waxay ku taalaa adoo lugaynaya maya daranjarta markaa soo koraysa mugdi waay daranjartaa lii galay marka dadkan dad oo kow dubliba dadka xaafaday ka cabsadeen iyo ciidanka hoos fadhiyo midna afku i qabtay dhab uu i siiyey xataa cijada meelahan iga taaltaalaa midna afku i qabtay ninka afka i haay nin rag u ahay xooggiisaan dareemay saaxibadkiisaan saan naasa ma leh labada naagna way i tumaayeen midna cunugtu afka haayey ninka markay buuqa maqleen markaasuu yidhi war geli mindida naagta geli mindida waa isla dhacnay ninkii xooggeega waa isla dhacnay gabadhiyuu geliyey mindida marka oo ku jeexay 4 qodob ee tolonta waa 7 jir ilmahaagi yaraa marka aniga waxaan kala kulmay dhib weyn waxaa lagu leeyahay xoog mucaarad ku noqo waxaa lagu leeyahay xoog dani ku noqo waa laisku dhiibay weligeyna la sheegaya muuse ila hadlin madaxweynaha weligey assalaamu calaykum muuse dhihin arrinkan marka ma aaminsan tahay dowladdu waxbay ka og tahay mise hadalkaagii iyo dhibaatadii ku gaartay haddaad xataa sheegan lahayd dowladda maba gaari karto miyaa leedahay oo balaaya ka horeysa mise dowladdu waxbay ka og tahay gabadha waa ku dhegay baalka ku dhegay waa hooyo soomaaliyeed oo dhibaataysan weeye oo dowladdu khiyaantay marka waa la isku cadaabaya waxyaalaha qaar haddii aan qofka bini-aadanka lagu garab istaagin waxaan rajeynaynaa inay soo noqon doonto sababtoo ah dhibaatada loo geystay afkiina ku maqlayseen aniga maahan wax maaragtay aan wax ka ogaa maahan ha soo qabsato mar labaad waxaan ka codsanaynaa inay waxa laga yaabaa inay khadka xataa ka go-ay waa laga yaabaa xataa waxay ii sheegtay
lacagtan ee khadka kusoo gashay xataa inaysan awoodin oo ay dad ka soo qaadatay waa rajeynayna inay soo noqoto marka Soomaaliya intiina meesha daawanaysa haddii aysan soo noqon maamadan waa maamada kow aan soo qabtay qof walba uu la xiriiri karaa wuxuu ku caawin karana ha ku caawiyo gabadha walaasheena ee dhibaataysan ee caruurta badan haysata ee madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha ugu magac dartay caruurteeda fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad caawisaan dad dawladda taageersan oo hadda cay soo qoray oo u jeeday kuwa luuqeeda inta gali doona u hanjabi doona oo caayi doonana way jiri doonaan marka qof bili aadan ee dhibaataysan waxba ha u hanjabin maanta waa adduun maalina waa aakhiro gabadhaas miskiinta ah inta wanaaga leh waxa weeye diir naxaysa ee Soomaalinimada ku jirto dabagal ku sii samee ciwaankeeda sii raac gabadhaas ha la caawiyo wixii la tari karana ha la tago inta diyaarka waa inay hanjabaan u handadaanna ilaahay ka baqaan idin leenahay waxba gabadhaas ha u hanjabinina sababtoo biri aday kugu imaanaysa jacayl ay u qabto dawladeeda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dartiis bay arrinkan u samaysay inay ugu magac darto caruurteeda wixii ka raacayna waa maqlayseen dhagihiinaad ku maqlayseen in loo hanjabay marka gabadha tan miskiinta ah ee hooyada Soomaaliyeed ah fadlan qofkii caawinaya ha caawiyo ciwaankan korkiisa ka fiiri magaceeda u luuqa u gal lambarkeeda weydii waxaa tiri kartid tar ilaa hadda hanjabaadi oo ku socotaa inay dhibaato soo gaarto waa laga yaabaa marka mar walba xaqa ha loo heliyo Soomaali haddaan nahay xaq uma helin qabiil ha eegin wax kale ha fiirin dhibaato kale maaragtay ha u geysanin kaliya walaasha caawi intaas ayaan ka codsanayaa walaalayaalow gabadha Soomaaliyeed ha la caawiyo gabar baan soo qabanaynaa ayay wax soo qabanayaa kaab waatana way soo laabatay hello assalamu alaykum ani waa walaal saad ani waa kugu soo celinay waalaikum salaam way soo laabatay sug waatana hooyo Soomaaliyeed bay la baxday xataa magaceeda xataa hooyo Soomaali wadaniyada ka muuqata marka ha walaal nimana ii dhaaranaayo idhaayo ka bax Facebooka ana ilaahay aan leeyahay walaalow ilaahay aan leeyahay nimana ii dhaaranaayo waxay leeyihiin Facebook sheekadeeda waxaa ku jirtay luuqa inta looga dabagalaa loo dhaaran doonaa baa ku jirtay waa hadda already waa loo dhaartay waa lii dhaarta boo waxa lii dhaay ummadda Soomaaliyeed maxaa ku codsanaysaa waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan dalka Uganda deganahay aniga qaxooti ku ahay kaar ku leeyahay ina iskiga taga meeshaan haddaan waashto aniga caruurtaasaan ka waalanayo ayaga kama waalanayo ina ilaahay dartiis igu caawiyaan mid kale dadka qabiilka soo qoraayo anigu qabiil mali farmaajo ku heeb ma ii si fiican ay ii fahmaan anigu farmaajo Soomaalidu waa qabiil jeceshahay waa dad qabiil ku qafiifay farmaajo hadduu daarood yahay adiga oo aya ah baa ilmahaaga ugu magac dartay u sheeg dadka waxaa tahay aniga waxaan ahay gabar ka soo jeeda beelaha dega Muqdisho abgaal wacaysle ma ii daarood waxay ii maleeyaan dadka daarood ma ii aniga hooyaday ayaa ay daarood bas wacaysleega macallin dhiblaawo waay wacaysleega waa macallin dhiblaawo ma ii anigu daarood dad badan arkay dhaay daarooda tahay daarood soo Soomaali maaha soo dad Soomaali maaha gabadha tani reerkeeda waa maqasheen inta qabyaalada jecel ee qabyaalada ku qaraabata waxay xaaladda Soomaaliya ka jirta maanta inaysan qabiil waxba ka ahayn waa la ogyahay waayo gabadha tan looma hanjabeen ayadoo ah gabar deegaanka u badan oo meeshaas degan maanta dhibaatada tan ma soo gaarteen hadduu qabiil uu awood ku leeyahay meesha ama qabiil uu wax tarayo ummadaada Soomaaliyeed maxaad kula dardaarmaysaa oo ka codsan lahayd hadda inta ku daawanaysa waxaan ka codsanayaa si Soomaalinimo ah sida aniga aan wadaninimada u muujiyay oo Soomaalinimada aan u muujiyay anoo ku heeb ahaan farmaajo aan ku raacay in san ii fiirinin dhinaca qabiilka ee duubaan ee iga caawiyaan ilaa Uganda waxaan ku tagi lahay transportkeyga ee igu caawiyaan ilaahay dartiis ay siiyaan dib walba isoo gaari aniga
hadeer inta joogtaa adiga waxaan joogaa xamar madaxtooyada okay hadda xamar aad joogtaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa gabadhan waa reerkaasi waxba micnaa ma sameynayso qof intuu wajigiisa soo dhigay meesha kula reer hebel qabiilkaasaan ahay maxay tahay cadaynta kale uga baahan tahay qof dhuumanaya oo wajigiisa aan muuqan hadduu yiraahdo reer hebel baan ahay waa la garan lahaa laakiin gabadhan wajigeeda u jeedaan ee kula reerkaasaan ahay ina haddana sii tiraahdo been bay sheegaysaa wax micnaa ma sameynayso dad baa garanaya waa la yaqaanaa waa gabar Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inaad maamadatan aad caawisaan fadlan lambarkaaga live-ka markaan ka baxno aan kusoo qori doonaa korkiisa haddii gabadhan Soomaaliyeed ay wax gaaraan dawladdaas sida loola socdo Soomaaliyeed dhowr jeer handadaada hadda miyaa lagu soo handaday hadda waxaa la yidhahay live-ka ka bax ku jirta waxba kuma taraayan dadkan Yurub ay joogaan mana ku badbaadin karaan waa cunug oo soo wacay waa haystaa wuxuu iga soo wacay messengerka magaciisa asagana waa qoran doonaa waa soo dhigi doonaa meel walba oo Facebook ah waxa weeye qof kasta oo ku soo hanjaba noo soo gudbi annaga ummad Soomaaliyeed ah annagana waxa weeye ummadda Ilaahay baan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ee meeshan daawanaya gabadhaas walaasheena inaad caawisaan ha u fiirin qabiil ha u fiirin dawladdu annaga waxa weeye mucaarad kuma nihin ma nabcin dawladda Soomaaliya inay hagaagto waa jecelnahay laakiin adigu dawladda dadka iska xijin kaagan live-ka ku jira ee ku dagaalamaya gabadhan maxay u hadashay leh sababtay u hadashay gabadhan nin kale how waxa weeye Ilaahay ka cabso dawladana waxa weeye cidna kama xigtay gabadii maxaa leedahay waxaan leeyahay aniga maadaama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay daryeeli waayeen way og yihiin hadday daryeeli waayeen waxaan ka codsanayaa shacabkayga Soomaaliyeed inaysan dawlad igu haleenin ee Ilaahay dartiis ay igu caawiyaan aad iyo aad aniga lafteedu waxa weeye waa ka sii baxaya gabadhan walaashiina qof walba si khaas ah ula soo xiriir ciwaankeeda kor buu u saaran yahay lambarkeeda waa kusoo dulqori doonaa marka waxa weeye qof walba waxaan ku codsanaynaa inuu maaragtay caawiyo inuu gabadhatan caawiyo waayo waqtigan ii saamaxayn waa sii wadi lahaa intaan dadaali karnayna waan dadaalnay marka magacaaga ku celi Istar Cabdi Maxamed naanees waxaa waaye awowgay xuubey bul xuubey ayaa awowgay lagu magacaabaa tani waa qof la garanayo ma ahan qof wax maaragtay been sheegaysa ma aha gabar la garan waayey waa gabar la garanayo qof walbo walaasha caawi u istaag aad baan kuu salaamaynaa Istarey live-afka dambana waa ka qayb qaadan doonaa Soomaaliduna way ku caawin doonaan insha Allah biidnillahi kariim waa lagu kici doonaa insha Allah salaamaya aad baan mahadsantahay alaykum salaam aniga waqtigan ii saamaxayn aad baan idin salaamaya dhammaantiin gabadha Soomaaliyeed ka daba taga ee caawiya waana mahadsantiin dhammaantiin